soon qaad wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulan wareedka warbaahinta Magan waxaana idin warami doono waryaheena Bahja Cabdullaahi Salaad iyo Ismaaciil Ibraahim Ismaaciil Sitoosi. qodobada barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo ka hadashay diyaarad shalay ku dulacday degmada Bardaale iyadoo dowladdu ay sheegtay in khubaro loo diri doono si ay u baadhaan sababtii dhalisay burburka diyaaradan. Kenya oo la sheegay inay jab weyn ku tahay in ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya. waraysi aan idinkaga hayno mid ka mid ah qurbo joogta Soomaaliyeed iyo Mareykanka oo musiibo kale ugu darsoontay cudurkii COVID-19. radio Magan dhugunsashay digmihii dhadhanshay lankii dooraay Magan radio magul bajeelay mudnaanta hadalkii midbii unfadaan uu radio Magan doo iibay dabadoolow agagaarshay lankii dunida ka nool Facebook bakad dugay Magan wali ku hale warar liimbago bulshada in riyaa qaayano baadkii nabaddu radio Magan radio midbii unfadaan waa hagaag markale isku soo noqod wanaagsan dhageystayaal Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilowday baaritaan ku aadan diyaaradii shalay galab ku burburtay degmada Bardaale ee gobolka Baay taasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 qof oo saarnaa diyaaradaasi. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa guddi khubaro saaka u diray goobta ay ku burburtay diyaaradda oo ay lahayd shirkadda African Express. guddigan ayaa soo baari doono sababta rasmiga ah ee ka dambeysay burburka diyaaraddaasi oo la sheegay inay si ula kac ah u soo rideen ciidamada Itoobiya. wasaaradda gaadiidka ayaa sidoo kale sheecisay inay si degdeg ah u shaacin doonto natiijada baaritaankaasi isla markaana ay la wadaagi doonto ummadda Soomaaliyeed. diyaaradan oo uu nooceedu ahaa 120 ayaa siday shixnad gargaar dawo ah waxaana ku nafwaayay dhammaan dadkii saarnaa oo 6 qof ahaa. warar lagu kalsoon yahay oo ay warbaahinta Magan ayaa sheegaya in diyaaradaasi ay ogolaansho ka haysatay wasaaradda duulista dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo horey loo wargeliyay maamulka garoonka Bardaale lagana warqabay xilliga duulimaadkaasi uu ku soo wajahnaa garoonka. dadka ku dhintay shilkan ayaa kala ahaa kabtan Xasan Muuse Bulxan, kabtan Mabruuk, kabtan Cumar, injineer Kenyaan ah, mas'uulkii xamulka saarnaa diyaaradda Cali Madax Gaduud iyo wakiilkii shirkadda Saciid Cabdillaahi Maxamed sida uu sheegay xildhibaan Ibi Cabdijibaar Sheekh Axmed waa hoggaanka xisbiga qaransoor ahna aasaasaha Marey kulmisa dadka qoraayada oo lagu magacaabo African waxaana uu ka mid yahay qurbo joogta ku dhaqan dalka dibadiisa isagoo aynu la yeelanay waraysi toxana ah taa oo aan kaga wareysanayno xaaladaha Soomaaliya waxaana waraysigan ku weydiinay arrimo la xiriira caabuqa coronavirus iyo xogaha dowladda ka gudbiso waxyaabaha ka soo kordhay cudurkan. waa kan Ustaad Cabdijibaar oo arrimahaasi ka hadlaya waxaana waraysigan inoo diyaariyay waryaheena Cabdikaafi Xangaay. marka soo dhawow ku soo dhawow warbaahinta radio Magan iyo barnaamijka kulan wareedka adigoo ku bilaabay magacaaga saddexaad. soo dhawow mudane. waa mahadsan tahay walaal. magacaygu waa Cabdijibaar Sheekh Axmed maaragtay waan dhawaa. Cabdijibaar sida ogahay waxaa tahay gudoomiyaha xisbiga qaransoor. safiican waa sax oo ku maqla walaal. Soomaaliya haddii oo corona ka jiro dowladda xog sax ma laga hayaa ama data sax ah? xogga dowladda maanta maalmahan ay soo gudbiso guud ahaan markaad fiiriso horta wixii sax wixii qalad ah ilaahay baa og. laakiin sida aan maaragtay aan isleeyahay aniga fikirkayga xogga dowladda ay soo gudbinayso xogog oo lagu kalsoonaan kara ma aha. sababta aan ku leeyahay wax kale ma ahayd sababta dadka ma jira data dad ay ku wada rajistaraysan yihiin ay ku diiwaangashan yihiin oo dhammaan dadka mataqaana maad xogtooda laga wada heli karo. marka cudurkan maaragtay sida u muuqatana waxaa soo gudbinaya waxaa maaragtay qaadka
waayahay cabdijabaar waxaa leedahay ama ku doodeysaa soomaaliya corona ku jira laakiin si sax ah dowladda ulama tacasho ama daata sax kama soo gudbiso oo delia waan gartay su-aashayga saddexaad haddii aan u gudbo dowladda iyo siyaasiyiinta ururada bulshada rayidka ma sameeyeen sidii loogu baahnaa kahortagii saxa ma sameeyeen aba ahaatee la tacaalid dhanka coronavirus wacyigelinta horta way kala tahay wacyigelin mid waxaa jirta dowladda maaragtay ay soo saartay iyo mid waxaa jirta bulshada ururada bulshada ay soo saartay marka wacyigelinta maaragtay qaarna way shaqeeyeen qaarna ma shaqaynin oo kuwo badana shaqeeyey oo sida muuqato oo dadkii inay guryaha joogaan qaarkood amradii dowladda soo saarto way qaateen dadka qaarna waxay isticmaaleen muuqaalo iyo warbaahintina sidoo kaleeta waxaan isleeyahay qayb bay ka qaadatay marka waxna way suurtagaleen waxna ma suurtagelin ka hortaga waa la sameeyey laakiin sida loo baahna 100% ma ahan waxaa keenaya wax kale ma ahano waxaa jirto bulshadeenna oo runtii ay ku adag tahay aad u moodaa inay awaamirta hore ka qaataan laakiin nidaamkii iyo qaabkii iyo wixii dhan sababta dadka inta badan guryaha ma fadhin karaan irsaaqadooda waxay ku xiran tahay maalinkaa wax lasoo helo marka sidaas aawadeed qaar awaamirta guriga jooga oo kale kama qaadan karaan waayahay su-aasha afraad aan gudoomiye mar haddii uu soomaaliya corona ka jiro doorashada qaab nooca ugu dhici kartaa dalka soomaaliya ma in dib loo dhigaa mise in ay dhacdo adiga bal ka jawaab taas waxay ku xiran tahay doorashada qaabkeeda waxaa tusaale ahaan haddii doorashadu ay noqoto qof iyo cod ma soconayso in doorashada dib loo dhigo waan qabaa oo fikirkaas waan ku raacsanahay si loo badbaadiyo caafimaadka dadweynaha wax walbana waxaa ka wanaagsan caafimaadka muwaadinka maaragtay marka dib loo dhigi karo fikirka waan qabaa haddii talana macnihii maaragtay qaab kala farsamaysan oo maaragtay oo taxadir uu ku jiran waa la samayn karaa labada dhinac waan qabaa waaya taa xagga igu hadli dadka u geeriyooda cudurka coronavirus waad aragtaa qaabka loo aasayo soomaaliyana siday waasto waad aragtaa bal adigu ma kula saxan tahay soomaaliya sidai waxa waasaysa dadka u geeriyooda coronavirus siday u aasaysa ma kula saxan tahay mise fikir ka duwan ayaa haysaa taa qaabka loo aasaayo maaragtay mar walba waa qaab qofka muslimka waa sidii diinta islaamka ee qabto oo dadkana loo aasi jiray in dadka loo aaso ama cudur ha qabo bisaysan qabin laakiin haddii duruuf ay jirto oo maaragtay oo dhibaato meesha ay ka jirto xagga cudurka inuu faafo laga cabsi qabo markaa sida xalka loo arko in la sameeyaa mar walba wanaagsan laakiin qofka bini'aadamka mar walbana waxaa wanaagsan in karaamadiisa la ilaaliyo oo hadduu meed yahayna karaamo uu leeyahay in karaamada la ilaaliyo marka mataqaana maaragtay mar walbana waxay u baahan tahay waxay tahay sida caadiga haddii la filin waayo sida macquulka in la sameeyo waayahay gabagabadii ayaa noo soo dhow barnaamijka iyo wareysiga waxaan rabaa su-aashiida kale haddii aan u gudbo dowladda waxay leedahay cudurka ka hortegayna mar haddii cudurka laga hortegayo shacabka maxaa loo laanayaa oo loo dilayaa oo loogu qasbayaa inay guryahooda ku xaroodaan waa fahmi karta hadalka saa fahmayo gudoomiye dilka oo maalin hore muqdisho ka dhacay si fiican u xasuustaa oo maaragtay ninka askariga uu labada qof ku dilay waan ugu tacsiyeenaynaa familkii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen runtii arrintaas waxay ka imaanaysaa in askariga soomaaliyeed uu u baahan yahay oo waxaan ka baran karnaa in askariga soomaaliyeed uu u baahan yahay in dadka uu difaacayo inay yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed loona baahan yahay ayaga dhiigooda iyo sharaftooda inuu ilaaliyo marka in qofkii cudur ayadoo laga difaacayo in la yiraahdo karantiinad ku jirta maxaa dinan kusoo dartii loo dilana horta waana fikir qaldan waana mataqaana waa ficil aad u foolxun waxaan loo baahan yahay askarigii dilkaa geystay inuu mataqaana maaragtay inqaabteed u maro siduu sharciga dastuurka mare la marsiiyo marka aad baan ugu soo horjeednaa arrintaas dhacday waana arrin fooxun xalka sidee u aragtaa adi ahaan dowladda iyo shacabka ku dhegeysanayo
maxaad ugula talin lahayd bal sheeg ayadana taa shacabka ku sheegba maxaa ugu talin lahayd shacabka mar walba waxaan kula talin lahaa inay mataqaana maaragtay ay diyaar u noqdaan inay qaataan awaamiirta dowladda ka soo baxdo sidoo kaleetana talooyinka loo soo jeedinayana waxaa ku jirta danahooda adiga inaad caafimaad qabto oo maaragtay taxadir aad yeelato oo wax macnihii mataqaana maaragtay lagu amraayo xitaa diiniyan waxa lagu amrayaa in mataqaana maaragtay haddii cudur uu jiro in gurigaaga aad ku tukato lagu ogol yahay markaas danta guud dadka inay fiiriyaan dantooda guud marka wax walba waxaa ugu qaalsan nafsadooda ugu qaalsan inay nafsadooda ilaaliyaan oo maaragtay tahay awaamirta ay raacaan dhinaca dowladdan waxaan kula talin lahaa dadka rantiilka lagu sameynayo oo dhan dadaa waxa ay noloshooda ay ku tiirsan tahay alyoomka maalin walba inay xisaab raadsadaan marka sidaas awgeed in dadka si dabacsan loola dhaqmo oo maaragtay systemkii wacyigelintana inay xoog kor u qaadaan hadday noqoto bara bulsho hadday noqoto inay aad u wacyigeliyaan hadday ay noqoto tv nooc walba oo mataqaana warbaahineed in loo mariyo xitaa warbaahinta kuwa oo madaxa baran oo privateka sidoo kale xitaa in ka qayb qaataan marka intaasan soo jeedin lahaa dowladda Kenya ayaa si rasmi ah u bilowday hordhaca wadahadallo ay ku rabto inay kula baxdo ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya u jooga arrimaha nabad ilaalinta wargeyska The Conversation ee inta badan baahiya faaqidaadaha ayaa arintaasi ka qoray warbixin uu ku muujinayo jabka dowladda Kenya ka soo gaari kara ciidamadaasi ay kala baxayso Soomaaliya iyo sidoo kale guulaha ay kala kulmayso ciidamada ay dib ugu celinayso dalkeeda warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay jab weyn kala kulmi doonto haddii ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya taas oo ay ku lumin doonto awoodeeda ciidan iyo mideeda diblomaasiyadeeda ee bariga qaaradda gaar ahaan midda gobolka Geeska Afrika qorshaha bixidda ciidamada Kenya ayaa fursad weyn u noqon doona ciidamada Itoobiya ay ka wada tirsan yihiin howlgallada midowga Afrika ee nabad ilaalinta iyada oo la saadaalinayo in Itoobiya ay saameyn weyn ku yeelato gudaha Soomaaliya xoogaysiga Itoobiya ee gudaha Soomaaliya ay u sii gogol xaadhayso bixidda ciidamada Kenya ayaa horseedi kara awood ay dowladda farmaajo ay ku sii joogayso talada dalka isla markaana ay ciidamada Itoobiya u adeegsan doonto mucaaradka iyo warbaahinta ka soo horjeeda siyaasadeeda sida lagu xusay warbixinta wargeyska dhinaca kale warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ay guulo weyn ka gaareen baajinta weerarada qorshaysan iyaga oo haddana u muuqda in uu gaabis weyn ka jiro hadafkooda koowaad ay nabad sugidda walow ay al-shabaab ka qabsadeen deegaano dhowr ah ciidamada Kenya ayaa markii 2011 ay gudaha u soo galeen Soomaaliya waxa ay ku guuleysteen inay lumiyaan awoodda al-shabaab ay magaalooyinka waaweyn ee dalka iyagoona qayb ka ah howlgalkii cuslaa ee gacanta argagixisada loogu saaray magaalada Kismaayo oo hadda ah xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Jubbaland qorshaha ay Kenya ku doonayso inay Soomaaliya kala baxdo ciidamadeeda ayaa ku soo aadaya iyada oo ay sii kordhayso naceebka ay bulshada Soomaaliyeed u hayaan uu sare u kacayo isla markaana uu sii xoogaystay xifaaltanka kala dhaxeeya dowladda Itoobiya iyadoo saaxiib dhow la ah madaxweynaha talada dalka ka haya sidoo kale waxa uu qorshahaasi ku soo aadayaa xilli ay dowladda Kenya wajahayso weeraro uga imaada al-shabaab iyada oo wargeyskuna ku sheegay in ka bixida Soomaaliya ay badbaado u noqonayso nolosha bulshadeeda iyo kheyraadka dalka Kenya waxaana la filayaa in dalka gabi ahaanba ka baxaan ciidamada Kenya sanadka soo socda ay 2021 haddaysan waxba iska bedelin qorshaha ay ciidankooda ugula baxayaan
magan raadiyo magan waxay u tahay dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed. ugu dambeynna iyadoo Mareykanka uu la daaladhacayo weerarka xanuunka coronavirus ee sida baan u saameeyay waxaa haddana ku bilowday cabsi kale oo aad u weyn kadib markii uu gaaray xoonka dadka laaya. xoonkan oo weyn dhirirkiisana la egyahay 2 inji ayaa lagu yaqaanay qaaradda Aasiya, laakiin waxaa markii ugu horeysay abid lagu arkay dalka Mareykanka gaar ahaan xeebaha dhinaca galbeed. dhowr qaniinyo oo xayawaankan u geysteen ayay dadka u dhiman karaan ayaa layiri. dhinaca kale wuxuu xoonkan cadowga ugu weyn ku yahay shinnida, taasoo uu ka burburiyo dhammaan meelaha ay malabka ku samaysato. ukumaha shinnidana waxa ay cuna xoonka yaryar ee ka mid ah xaynta weerarka geysata. saynisyahanada Mareykanka ayaa hadda aad ugu mashquulsan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xoonkan ka hor inta uusan baabi'in dhammaan shinnida ku nool dalkaasi. inkastoo xoonka dilaaga ah ee Aasiya uu badanaa dadka ka weecdo, haddana qaniinyadiisa ayaa la aaminsan yahay inay sanad walba disho dad ka badan 50 ruux sida uu qoray wasiir wargeyska New York Times ee kasoo baxa dalkaasi Mareykanka. wuxuu xayawaankani waqooyiga Ameerika markii ugu horeysay gaaray bishii Agoosto ee sanadkii 2019 xilligaasoo lagu arkay meel ka mid ah dalka Canada. dhowr bilood kadib bishii December ee isla sanadkaas ayaa xayawaankan oo duulaya laga soo sheegay meel u dhow xadka koonfureed ee gobolka Washington. jaamacadda gobolka Washington ma hubto goorta iyo qaabka uu xoonkan markii hore ku tagay waqooyiga Ameerika, laakiin dadka shinnida dhaqda ee ku nool gobolkaasi ayaa bilihii ugu dambeeyay soo tabiyay dad u dhintay siyaabo argagax leh. saynisyahanada ayaa si degdeg ah xal u raadinaya si looga badbaado xayawaankan oo dhaqdhaqaaqiisa nolosha ugu badan sameeya xilliga guga. xoonka wuxuu ku socdaa tiro argagax leh ayuu yiri Todd Murray oo ah saynisyahan ka tirsan jaamacadda gobolka Washington, sidoo kalena ah khabiir ku xil dheer cayayaanka dalalka weerara. waxaa cabsi dhinaca caafimaadka ah wuxuuna si gaara khatar ugu sii yahay shinnida ku nool wadanka ayuu yiri. cayayaankan ayaa la eg cabirka baabuurta yaryar ee ay caruurta ku ciyaaraan, wuxuuna leeyahay madax weyn oo jaalle ah iyo indho madow. qaybtiisa dhexe ayaa isugu jirta midabka jaallaha iyo madowga. waxay u muuqdaan sida kartoonka bahalka loo ekeysiiyo marka aad eegto wejigooda weyn ee jaallaha ah, ayay tiri Susan Kobi oo ah khabiir shinnida ku takhasustay oo ka tirsan jaamacadda gobolka Washington. nolosha xayawaankan waxay bilaabataa bisha Abriil, markaasoo oo boqoradooda ay ka soo baxdo qasriga ayna bilowdo inay wax cunto iyadoo kuwa kalena ay ku daydaan. marka ay xilliga xagaaga bartaan sida wax loo cuno, dhammaantood waxay xeryahooda uga soo baxaan si ay raashin u raadsadaan. inkastoo waxa ugu horeeya ay bartilmaameedsadaan uu yahay shinnida iyo malabkeeda, waxay weerari karaan dadka haddii ay khatar ka dareemaan. qaniinyadooda oo dhowr jeer ah waxay dili kartaa qof kasta oo xitaa dadka aan xasaasiyadda qabin. dalka Japan oo xayawaankan si weyn looga yaqaano waxay sanad kasta ku dilaan qiyaastii 30 ilaa 40 ruux. markii uu qaniinay waxaan dareemay xanuun weyn, waxayna ilahayd sida anigoo bir kulul la igu dhajiyay ayuu yiri Conor Berow oo shinni ku dhaqda jasiiradda Vancouver ee weerar kala kulmay mid ka mid ah xayawaanadaas. saynisyahanada jaamacadda gobolka Washington waxay xilliga guga bilaabi doonaan inay raadiyaan boqoradda xoonkan si ay degdeg ugu ciribtiraan. shinnida ku nool dalka Mareykanka ayaa horeyba cadaadis ula kulmaysay intii u dhaxeysay sanadihii 1947 iyo 2017. tiro ka mid ah boqortooyooyinka shinnida waxay hoos ugu dhaceen tiradii ay horey u ahaayeen ee ahayd 6 milyan, waxayna hadda gaarayaan 2.5 milyan oo kaliya. sanadkii lasoo dhaafayna cilmi baarayaasha jaamacadda Maryland waxay soo tabiyeen in 40% shinnida dalkaasi ay ku dhinteen. guud ahaan waxaa halkaa inooga dhan barnaamijkeennii kulan wareedka warbaahinta magan oo ay si wada jir maanta idinku waramayeen anigoo Ismaaciil Ibrahim Xasan Sijoosi iyo sidoo kale Baaja Cabdullaahi Salaadis Martin dib kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi.